بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا ورئيسة سلامته دمان مرتشرف قرن كارهان هيدها وحل سارن ديوغيز دستورك وكقوبان وزاردها هير فدرالي هير دولة القبلات gobolka banaadir iyo marti sharafta kaleeto oo nagala soo qayb gashay dhammaantiin waa idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. farxad weyn ayay runtii gelinaysaa maanta meeshaan taagannahay oo runtii ah lixda cutub oo u dambeysay dib u eegista dastuurka in la tashadii la geliyo. lix cutub oo muhiim u ah in la geliyo. waxaan rabaa inaan marka hore bogaadiyo shaqadii soo qabsoontay iyo guulihii la soo gaaray. afar cutub waa wada ognahay. koowaad ilaa afraad baarlamaanka federaalka soomaaliya ansixiyey oo maanta ansax u yahay. shan cutub oo guddiyada ka soo shaqeeyeen oo la tashiyada loo soo sameeyey ayadana runtii shaqo soo qabsootay waayo waa isku bogaadinaynaa oo dal iyo dibad meel kasta loo tegay oo runtii waqti badan la geliyey oo maanta diyaara oo sugaya baarlamaanka federaalka soomaaliya oo iska leh awoodda wax ka beddelka dastuurka inuu sidoo kaleeto kana doodo noona ansixiyo. maanta waxaan ku faraxsanahay marka lixda cutub oo u dambeysay 15 cutub ee uu ka kooban yahay dastuurkeenna inay maanta noo saaran yihiin. isha ayaan mariyey 15 lixda cutub cutubka tobnaad waa cutubka guddiyada. guddiyadu aad iyo aad ayay muhiim u yihiin dowladnimada oo hay-adaha dowladda iyo guddiyada badana madaxa bannaan dhismahooda marka in dib u eegis lagu sameeyo aad iyo aad bay muhiim u tahay. sidoo kale koob iyo tobnaad waa shaqaalaha rayidka ama shaqaalaha dowladda waxa la yiraahdo in dadweynaha loo geeyo iyagana sidaas oo kaleeto oo la tashiyo lagala soo sameeyo oo dib u eegista ay ku bilaabato. laba iyo tobnaad waa FMS waa dowlad goboleed wixii hadda ku horreysay federaalka laga hadlayay cutubkan laba iyo tobnaad waxaa looga hadli doonaa dowlad goboleed ayuu dul istaagaya. saddex tobnaad waxaa waaye maaliyadda public finance ama xoolaha dowladda la yiraahdo iyo sida loo maamulo. chapterkaas cutubkaas saddex tobnaad ayuu noogu jiraa. afar tobnaad waa nabadda iyo amniga qaranka iyo nabadda iyo sugitaankeeda. طبعا cutubka ugu dambeeya 15aad waa cutubka kala guurka iyo wax ka beddelka dastuurka ka hadlaya cutubka 15aad. marka muwaadin dhammaanteen muwaadiniinta Soomaaliyeed hay-adaha u xil saaran oo shaqada soo waday arrintaas waxay noqon doontaa dhamaystirka dastuurkeena. waxay ahayd himilo ummadeed oo runtii muddo dheer nala soo socotay way nagu soo dheeraatay. dabcan caqabaduhu waxay ka imaanayeen siyaasadda. qof walba Soomaaliya wuu ogyahay caqabadaha siyaasadda ayaa dastuurku ka dhamaystirmi waayey. dastuurkeena sidoo kale waxaa la yidhahdaa waa midka ka shaqaynaya midnimadeena
يدول الدمرين أيوة مسؤولية. مرة على إن سياسة دين ويكشف عيسو إن الدستور كيني أهمية سيسو والدستور كيني وده يستلم دستور كيني صدق يتواصل على وجهه هاي دستور كم يلقار هاي الصومالي ما كان عيب وده راتي وهروتي أو يتواصل دستور معلومات لنا مايا أسبوعية لنا مايا الدنيا بلا واحد بدن سنة دستور كانوا قبليه هاي كم يلقار كم رعاية يتوقع فوق أو واحدة مركا marka hore waa himilo wada Soomaaliyeed inay gaartay tahay marka labaadna dowladnimada iyo ugu xiran dowladnimada dhamaystiran oo aan gaarsan waxay ugu xiran tahay in dastuurkeeda ay dhamaystiranto qof walba oo maanta ka qayb qaata ha ahaadaan hay'adaha wixii saaran ana waa kuwa waajibkooda ka mid tahay ee muwaadin walba waxa saaran in dastuurkan dhamaystirno gaar ahaan hogaamiyayaasha siyaasadda Soomaaliya meel jiray dhammaan waxaa naga saaran in wada dhamaystiro si dowladnimada u dhamaystiro marka dadaalkii la bixiyay maanta wuxuu marayaa inaan soo gaarno halkaas inaan soo gaarno 15 cutub aan haweysano wala dhamaantood la tashiyaday in la wada geliyo labada kala fadhi ee nooga harsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya inaan tiigsano in ay wax ka bedelka dastuurka qaybaha cutubyada dhiman inay ku dhamaystiraan waxay milan Soomaaliyeed sharaf iyo waxay noqonaysaa dowladnimo noo soo wada korortay baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waliba qaasatan baarlamaanka koob iyo tobnaad wala waaweyn muhiim ah ayuu dalkan u qabtay oo shaqooyinka ugu muhiimsan tahay dastuurkan uu bilowday oo ansixintiisa ay bilaabatay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa kuwa kaleeto oo la tashiyo dhamaystay inay wada maraan oo sidii ballankeenu ahaa inay naga dhamaystirto dastuurkan oo uu harabis aftida weyne ay waqto ayadaas insha Allah taala وقال لنا مرماتا أنا كفر أحسن فرتانكا تبين المدن بالدستور كله للتشييد ولي أنا كفر أحسن فرتان كله عرّنا ما أدري غفر بقصة القاطع وعرّ هيئته أمام معاهدي كسوق القاطع سيجارة الانستيتيوت كالمباريستا ماكس بلان إن الرجال ما ذلشوا كان يبقى هذا الشغل تكنيكلي يعقورهان يفرسمهان كعاوني إن الرجال ما ذلنا إذا الرجال ما ذلك يبقى تنا سيدا صوت لتو أيام الرجال ما ذلنا